هي كور عبد الرزاق جوجا والله جوجنا عادي maaha joogna ishi gobka siwan waxaan weeyna maanta jooga inkastoo aan nahay sahan laakiin aan insha Allah bilaa kalimaadka waqti badan ku qaadan doono waqti wanaagsan insha Allah aan ka diyaarin doono dhamaantiin aad baan salaam alaykum joogteen waayo ma sanadina gaariga isku ay gure soo dhaw sax waxaan joognaa meesha lagu jiray ishi gobta صح sidaad maqashanba aye shameel dalxiis ku wanaagsan marxaba meel aad u qurux badan aye maanta booqashan ku nimid ka insha Allah ka dabayna oo iman doona anagoo sidan ka sii qurux badan insha Allah taala hadoo alla yiraahdo way aad ba maasta asxaabta qaaliga meeshan waa meel aad u qurux badan asxaabta iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan iyo waxaan ku yiraahdaa dhalinyaradu ku soo wada jabeen marka hadoo alla idmaayo meesha jawigeeda iyo wixii aan soo arki doonaa jawi qurux badanna waan ku soo qaadan doonaa waqti wanaagsanna waan iman doonaa inkastoo imika nahay ciid mubaarak iyo Axmed Yaasiin ciid mubaarak ka baxnaa waxaan soo wadayba meeshii waa jam bay noqotay dirqi lacag baan lagu soo furtay meeshii bilaash baan moodaynay balse lacag baa lagu galiyay adiyada meesha ma meel banaan iska ahayd lacag cid laga ma qaadaynin dadkii baa yimi ku soo batay way isku sheegeen kadib waxay noqotay meeshii in ninkii tolkiisa inta u yeedho meeshii bilaadayr way mootay saa tolkiisa ugu taxu deer kaga dhigo deedna buurin baa lagu oranayaa joogaad lacag ku socoto meeshii madna la leeday baa ka dhacday maya dir waxaad noo diri karayso waa ka dhacday wixii haynay baan u dirnay dad wanaagsan baan helay meesha meesha jawiga qurux badan leh raaxibkay mahad baa garabkayga fadhiya hay mahad ka hor meesha siin moodinay waxay naga qabsan wallahi sidaan markii hore moodinay ku soo talagalay meesha markaan imanay aan ku soo talagalay iyo steamka noqotay wallahi kala laba noqotay sax meesha waxaan u nimid markii hore horta maalmihii hore bariyo hore horta mar hore nimid markii hore nimid ciidamo ma joogin meesha sidii ka soo qurux badan waliba cidna lacag isma weydiinay sax balse laakiin imika waxay noqotay deegaan dadku oo dhan ay ku soo hirtaan maadaama ay sidaan noqotay dad badan meeshii imanayaan ragga meesha laha waxay keenan fikrad ah in dadkii ay ka ganacsadaan laga ganacsado meeshii loo bedelo mid kalena meesha xashiish iyo cunto iyo waxba la wada imanaya naagada meeshii dadkii deegaankii waa la bedelay deegaanku way farxay waa asbaabaha lacagta looga qaaday dadka ay ka mid tahay ma sha Allah meesha nimca ka dhacday cadceedina way sii dhacaysaa wataa waf ma garatay marka haduu la idmaayo vlog waxaan ugu tala galnay in maxay haday lagu soo dalxiiso oo runtii meelaha goobaha dad ku ciidayaan ku dalxiisayaan la soo tago halka waxaad ka dareemaysaan dad badan oo runtii dabadayda taagtaagan halka kale waxaad ka dareemaysaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh markii soo dhawaad joogtaan oo markii yani Cabdi Sabax Xasan maanta waxaan joognaa maxaa la sheegay isha gubka oo waxaan la safraan garaynay agaha maray hal buraawl bilaa runtii dadku ay ku badan yihiin caruurihii iyo dadkii xaasleydahayd iyo dad waxaan ku friendiska oo dhan baa wada yimi saad wada arkaysaa dhamaantood baa wada jeedaan marka waxay noqotay lacag hadaba lacag noqotay lacagta waxa lagu hagaajinayaa meesha cuntada iyo cashada lagu cunaa waxa caagad iyo xashiiska buuxooda yaabaysa meesha lagu nadiifinayaa baa leeyahay marka hal la ogolaado nadaafadda halka doorada nadaafadda hal la ogolaado meesha sawirkana hal laga dhergo dadkana meeshooda kala diray meeshii sidoo doog iyo quruxda oo aan biyo kale iyo biyo iska goobe oo jeeda meesha xashiish bad ku arkaysaa baad haga ku qabo soo ma jeedi aka xashiishki dadku xaqan bood dhigan xashiishka waa caagadi la xaga kale oo ka muuqanaya xashiishka oo arkaysan laba meelood weeye meeshu magaranaysa meeshii kale waa halka waa la diiday way ka sii xashiish badan tahay ba sida uga dad badan tahay waa xashiish badan tahay dadka ma kooda qaadi salaam alaykum dadka ma kooda qaadi ma baaya waa ayra kooban bad inta badan halkan waxa dadku u yimaadaan in sawir ku galaan sawiradaas oo ah in ay taariikhda ka rabaan iyadoo maalinta ciid tahay laakiin meeshan bishii Ramadaan ma bishii Ramadaan oo dhimaadna laakiin way suuri gelin iyo cawl oo waxaan isnahay bishii Ramadaan tahay waan mashquulnay kale dana ayaa ka badnaa oo waxaan isnahay marka yimaada laakiin waxaan ku wadnaa marka aan nimaadno anagoo nafisa ma sha Allah maadaama Ramadaan intii hore ahayd hawl iska badnaayeen la iska soomanaa balse haddana dad badan baa yimi oo ku dalxiisay oo afridooda macaan ku diyaarsaday ma ogtahay waxa baabuur meesha ka buuxda wadaadka saxda qori abal ugu qabaano inta suba ka adagay waan si dhaxmartana baabuurta ku leedahay laakiin waxaan la meesha wallahi wadi badata maanta aad wallahi lacag miyadii baa xataa iska keenay Soomaalida halkan bay ku dhufteen miyigii baa xataa laga keenay banaan bay iska hayd Cabdi Saaqo banaan bay meeshan iska hayd dadku iska yima jireen waxa la ogaaday in meesha dad badan ay isku soo tilmaameen ay qurux badan tahay kadib maxaa dhacday ma garanaysa waxa lacag ka keena balbal soo socda halka waxa ka muuqanay cawl gabadhu kale saaxiibkay taraafiib noqday gabadhu kale hagaa waqti marka qaar cawl
meesha dad baabuurta ku badatay ma haye trafficna iyo waxaan ku riyaa askartii ma joogaan haye marka waxa dadku iyaga istabariyo ismaamulaya haye marka traffic baan ka hay joog ka dambeeya ka qabtay joog ima gaarigaas parking bulaya nafla caarid ka dawatan meesha ku qabo halka weeyaan halka balacanta la iskaga qaadaya waka ninki tolkiis halkaas tolkiis kugu wada imaad Soomaalida macaamiyiga keenaysa waxaan ku suganay mas'ala hargeysa ku suganay meesha waxaan jirtay meel cilaa laakiin hadda waxa soo bedeshay lacag oo dadku waxa weydiinaya lacag waxa leeyahay lacag keen dadkiina waxa leeyahay halka beerta lacag ku keenana bas laakiin uu leeyahay aniga lama eega dadka iska oo tumay aniga dadkina waa loo jeedaa oo taa Cabdirasaaq ma aha عسكر بيجيبان بيش عماك قبصة واري دبا ما شاء الله ما سعيدي ما شاء الله ايش قلت سعيدي ما تصبح والله ما شاء الله والله الحمد لله هاد بلورك سي برسم معك هذا سيدي عيدك وناكسي ولا سعيدي بيرتي مصلحة لو سعيدي ايش قلت لك سعيدني امه مسلمين iyo umada Soomaaliyeed ba waxaan u leenahay ciid mubarak reer Soomaaliya umada Soomaaliyeed hadda waxa weeye waxaan ku jirnaa ciidka maalintii koowaad baan ku jirnaa waxa hadhay 2 iyo 3 baa hadhay haduu Ilaahay idmaayo dalxiiskuna ma aha maalinta ciid oo qura insha Allah dalxiisyo badan baan u bixi doonaa oo kuwan ka qurux badan waxaad leenahay ciideeda alla bashbash iyo barwaaqo iyo caafimaad iyo cimri dheer Allah inagu gaarsiiyo araamin dhaatay amiin wa ducaysaa halkaana waxa ku kafanaya eega qabse la jeclahay waxa qabasho imaga warqadna mashii oo waxaan u soconaa xaafadii iyo magaaladii bolbol baa gaariga noo wada bolbol la ilaaha illa allah yes waxaan leenahay waxaan ku iri saaxiibada baan ku salaamayaa dhamaan asxaabta جمال كلامور أول بيت اختيارتي لا صار في دولة ساعد waxaan ku yeeray ciidkan هاي ساعد عصوبات meesha wada oo ku soo kordhisay sharaf halka dawladda waxa fadhiyan aan hadalkiisa aad u jeclay ninka baraysaana baraysay waxa la ciida sooska ciida waxa la ciida ciidan ciid mubarak banaana now hay laakiin maanta ciid baan soo ciid horta ya ciid baan soo ciid ciid lama hor karo ciid ciid waa taa dhulka hay laakiin waa ciid lama hor karo nin baa ciid leeyahay hay ciid waa ciid hay ciidkii baa la isku haystay waxa leeyahay abraha la oran jiray markii hay ciid hay كان نود مبارك تقول ايش قد يسن وين كقول عيد وين كقول مبارك هذا والله واحد جوجا ترى الرتي بايلود aad u fiican oo isku halay weyn wala isku halay kara waxa ku weydiiyay caawinow habeenkii kugu leeyahay kubadaad gaari ka xasabeenkii waa habeenkii kugu leeyahay kubadaad habeenkii leeyahay ana garay wallahi habeenkii kugu leeyahay kubadaad soo dhaar halkii oriental kaantiisa noocan soo inaan dhuxulaha naad maraya ayaa asaga kariyoon inuu ku qaaday aad xasabay ma qawdi ma qawdi markaasuu ku leeyahay inta daadagni ayuu ku leeyahay maxaa dhacay wallahi ana ku sheegay والله ود لسعد والله ود لسعد قريو وي halka guri baa ku jira moogtay waxaan koori inta aad YouTube ku jirtay maxaa kugu dhibadnaa wallahi waxyaabo ku dhibadnaa waxa kamid ah maalinta cayla soo dhigay hay waxaad ka sheekaysaa social media waxaa haysatay inantii naasaheeda ku joogtay waddanka reer Puntland inantaa ka waran inantaa soortay oo akhlaaqda magaalada ku soo biirtay نيو السوشيال ميديا روح ماضي اي صح كلامك ما اي waxaan noqday wax caaqul laga raadiyo ay caaqul ma xuma gasho day wax walba soo dhigaya dibiga ku dambeysana balbalaadkii maqlayo aka bartama balbalaadku waa taageersanay anagu maxaa la sheegay waxa la sheegay dad oo asxaab la soconay gaari ma la soconay gaarigii waxa la doonayaa inaan fuulo caawila halka waa ku soo bixi kari lahayn maraan stop digana maashi أولو ولا يا ولا ولا ست عام بس ولا سوينا لا ولا سوينا ناس عاد بيد
maxaad ku leedahay cawlow berito dadka maxaad leedahay hadduu yahay idhaahdo ma garanaysa imika jeebkaana ka dhacaysa meesha lacag baa lagu gelayaa todobaan lacag soo kiilanana insha allah fiiyo qurux badan baan idin soo doonayaa insha allah saaseen iska ogi haye dhammaantiin markii dunida dacalada ka joogtaan sidoo kale salaamina assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhammaantiin markii dunida ka joogtaan dadka cusubta channelka subscribe saa like share thank you